xasilinta caasimadda waa erebixin ku cusub saaxadda siyaasadda iyo dawladnimada Soomaaliya. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore magaalada Muqdisho ugu sameysay ciidamo xasilina. Haatan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali waxa uu Garowe u magacaabay taliyaha xasilinta ee amniga gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada caasimadda ee Puntland ee Garowe. General Muxyidiin Axmed Muuse xasilinta amniga caasimadda. Sidoo kalena waxa loo magacaabay taliye ku meel gaar ah inuu ka noqdo qaybta Garowe. sidoo kale waxa la magacaabay gudoomiyaha gobolka iyadoo kii hore la bedelay waxa ka sii horeeyay golo deegaan oo cusub haddaba isbedelada tani sida wax uga qaban karaan xaaladda amni sideese loo xasilin karaa Garowe maarxin magacay waxa la yiraahdaa Mahad Abshir Maxamed waxa looga qaban karaa dhalinyarada moobilada furanaysa magaalada Garowe dadka baahay kuma kaleefin furashada moobilada xoogaa anshaxuma ah iyo waxbarashadii oo ay seegse ku noqotay arinta ugu wacan marka waxaan oran lahaa arinta waxa looga bixi karaa oo kaliya in dad dharcada loo diro oo soo ogaada xaafadaha ay ka soo baxayaan iyo qaabka isku abaabulayaan iyo cid ka dameysa magacaygu waa Faadma Axmed Maxamed waxaan ahay hooyo ganacsato ah oo Garowe joogta moobiladu aad iyo aad ba maxay hayto u saameeyeen magaalada Garowe 24 saac waxba laga qabanaya wax laga qabtana ma jiro dadkiina waa la furtay haday lacag tahay waana la ka furtay haday moobil tahay waana la ka furtay tooray baa dhuunta la ka saaray maxay hayto amnigi baa faraha ka baxay waxa weeye maxay hayto waxa ka qabta Muxyidiin baaqba waxaan ugu dirayaa inuu ka qabto waliba injida meesha injida magacaygu waa Cabdullaahi Farxaan Maxamed Cali tuugada waxa loo qaban karaa waa dhalinyarta markay shaqo loo sameeyo ama wax qabad wax uun ay qabtaan in loo sameeyo haddii wax loo sameeyo way ayaguna shaqo inta ka dhiganayaan magacaygu waa Saciid Musaciid baa la yiraahaa waxaan ka tirsanahay dadweynaha ku nool Garowe ilaa xalay barkii xantaas ku jirtay wax la bedelay taliyay qaybta iyo barisaabkii iyo habeen hore magaalada nabadgelyada dhifrinta weyn baa runtii u dhaxeeyay leeyihiin markii la Muxyidiin la magacaabay baa ugu dambeeyay waxaanu si xor ah u maraa dhulkii habeen barkii xalay waxaanu maraynay dhulkii aan la gali karin nimanka ayaga anigu waa Kafays Ciise Maxamed baa la yiraahdaa anagu waxaan deganahay xaafad baan deganahay xaafadda hodoona go'an baa deganahay xaafadiyadu xaafad amni la maaha xaafad gudlana ma xaafad amni la maaha waxa weeye habeen bal maalinta iska daayay maalinta habeenka iska daayay maalinta la furtaa marka waxaanu doonaynaa marka loo doortay amniga hadda loo doortay amniga si fiican oo qabtaan oo meesha soo gaaraan oo midda habeenka roonto noo ka anaga gobolka dubac banaanka ma baxno magacaygu waa Cawaale Cabdisaad runtii aad baan soo dhaweynayaa maamulka cusub insha Allah waxaan rajaynayaa in ay wax badan iska bedeli doonto ammaanka magaalada oo hadda aad moodo in tuugadii ku soo fara badanayso oo moobiladii khaati looga taagan yahay habeenkii si kastaba ha ahaatee Garowe uu ah caasimad Puntland waxay u baahan tahay in ammaankeeda la sugo dadkuna waxay ka cabanayaan furashada moobilada oo ah waxa ugu sahlan hase ahaatee waxa la sugayaa sida ay wax uga qabtaan maamulkan cusub Maxamed Salix SBC Garowe